duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa maanta daahfuray mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo magaalada Gaalkacyo kuwa ay kamid ahayeen dhismaha xarunta ururka haweenka degmada Gaalkacyo iyo qaybo cusub oo lagu kordhinayo isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo ee Galmudug. munaasabada dhagax dhigga mashruuca dhismaha xarunta ururka haweenka degmada oo ay goobjoog ka ahayeen mas'uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka degmada Gaalkacyo ayaa waxa warbaahinta kula hadlay duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo ka warbixiyay mashaariicda horumarineed ee laga hirgelinayo Gaalkacyo iyo ahmiyadda ay u leedahay shacabka reer Gaalkacyo. halkan maanta waxaan ka dhagax dhignay aqalkii dumarka oo laga dhisayo xafiiskii dawladda hoose dhexdiisa. waxaa loogu talagalay dumarku inay qayb ku yeeshaan dawladda hoose. runtii waa arrin fiican oo horumar leh, waan soo dhaweynaynaa dumarkuna inaan ha ogaadaan maaragtay inaan kaalintooda dawladda hoose looga ogol yahay deegaanka. mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariic CBD iyo SSF ay ka wadaan deegaanada Galmudug. aqalkaana halka looga dhisayo haweenka guriga looga dhisayaa. waxa kale iyadana sidoo kale ku jira qayb hooyada iyo dhallaanka isbitaalka khaasatan dhinaca caruurta oo ay dayactirayaan oo mashruucan ka mid ah. waxay kala wadaan ay hawlo noocan oo kale ka fulinayaan afbarwaaqo iyo laanwaaley. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, waana soo dhaweynaynaa. maamulka dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday qorshayaal ballaaran isla markaana wax looga qabanayo adeegyada bulshada, taas oo qayb ka tahay wax ka qabashada baahiyada la xiriira dhanka adeegyada bulshada iyo sidoo kale dib u soo celinta bilicda magaalada Gaalkacyo. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.